madaxweyne Farmaajo oo khudbad xasaasi ah maanta ka jeedinaya fadhiga baarlamaanka iyo qorshihiisa cusub oo la ogaaday. Mas'uul ka tirsan dowladda federaalka oo si degdeg ah isaga casilay xilkii uu ka hayay dowladda isagoo loo saadaalinayo in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Sheekh Shariif oo heshiis hoose kula jira Villa Soomaaliya iyo xilka ra'iisul wasaaraha oo la sheegayo in loo magacaabo siyaasi isaga uu wato. Dharbaaxada ka dhalan karta fashil ku yimaada shirka Dhuusamareeb iyo beesha caalamka oo war ka soo saartay, iyo xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga oo wajahaya xaaladii ugu xumeed. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan. aynu ku bilownay war qoraal oo kooban oo ka soo baxay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay in xildhibaanada maanta oo Sabti ah oo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo warbixin sii doona golaha shacabka. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo BBC-da u xaqiijiyay kulanka baarlamaanka iyo madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweynuhu warbixin sii doono baarlamaanka. inkastoo aanan si faahfaahsan loo ogeyn waxa uu madaxweynaha ka sheegi doono baarlamaanka, haddana waxaa la aaminsan yahay inay ku qodonto arrimaha hadda taagan oo ay ka mid tahay nooca doorasho ay Soomaaliya yeelan doonta. waa tii uu madaxweynaha hore u ballan qaaday in marka uu soo laabto baarlamaanka warbixin sii doono, waxaanay ku salaysan tahay xaaladda doorashada dalka, ayuu yiri gudoomiye Mursal oo la hadlay BBC-da. madaxweyne Farmaajo ayaa gabagabada shirka Dhuusamareeb ka sheegay in isfaham waa dhanka doorashada ay u dhaxeeyo maamul goboleedyada, oo uu sheegay inay doonayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo waqtigeeda ku dhacda, halka guddiga doorashada iyo baarlamaanka oo isku dhinacna ay doonayaan in doorasho qof iyo cod ahi lagu soo doorto madaxda xigta. Farmaajo ayaa hore u sheegay in isaga uu yahay ilaaliyaha sharciga kana shaqayn doono sidii wax la isugu waafaqi lahaa xildhibaanada iyo shuruucda la meelmariyay sida laga yeeli lahaa iyo duruufta jirta ayay arrintan taagan tahay. hadda aniga waxaa iga aadan waxa ay tahay inaan isku soo noqono oo qof walba uu ku noqdo meeshii uu ka yimid oo wadatashi ugu noqdo. anigu waxaan dib ugu noqonayaa baarlamaanka, waxaana kusoo wargelinayaa wixii aan ku sheekaysanay, waxaana isu soo noqonaynaa, ayuu madaxweyne Farmaajo ka sheegay gabagabada shirka magaalada Dhuusamareeb. maanta oo taariikhda ku beegan tahay 15 bisha Agoosto ayaa loo ballansanaa in la isugu tago magaalada Dhuusamareeb. hase yeeshee dad ku sugan magaalada Dhuusamareeb waxay BBC-da u sheegeen inaysan muuqan qabanqaabada qabsoomida shirkaasi. geeska kalena cabsida laga qabo inuu waqtigiisa uu ku furmi waayo wejiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb ayaa sii karaar qaadanaysa xilli laga digay cawaaqib xumo imaan kara haddii uu dib u dhaco. shirkaasoo lagu waday inuu qabsamo 15 bisha maanta ku beegan ayaa ajandaha ugu weyn ee horyaala waxa uu yahay nooca lagu galayo doorashooyinka 2020-2021, arrintaasoo madaxda ku heshiin waayeen kal hore. guddi farsamo oo dowladda federaalka iyo maamulada ayaa loo saaray qadiyadaasi, balse guddigaasi waxaa shaqadiisa soo wajahday caqabad markii baarlamaanka iyo madaxtooyada ay rideen xukuumadda. Puntland iyo Jubbaland ayaana ka qaybgelin kulamo guddiga ku yeeshay magaalada Muqdisho, waana caqabad kale oo ku gadaaman shirka. qaybsiga ka qaybgalayaasha waa caqabad kale oo xal u baahan. inkastoo Galmudug oo martigelinaysa iyo dowladda federaalka ku adkeysteen inuu xilligiisu ku bilaaban doono shirka, haddana ma muuqato qabanqaabadii kulankaasi. 3 ilo wareed ayaa dusiyay in shirka uu gebi ahaanba baaqday, halka 2 kale oo midkood Villa Soomaaliya ku dhow uu tibaaxay inay suurtagal tahay inuu maalmo dib u dhaco. Farmaajona uu diyaar u yahay. Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha Hirshabelle ee hogaamiyaasha la filayo in shirkaasi ka soo muuqdaan ka mid ah, ayaa hoosta ka xariiqay in haddii dib u dhaco shirkaas ay ka dhalan karto natiijo aan la filaynin. qaar kale oo Waare ka mid yahay ayaa rumaysan in fashil ku yimaada shirkaasi ay dhabaha u xaari karto faragelin beesha caalamka ku samaysa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, taasoo dharbaaxa ah. waxaan rajaynayaa kuna baaqiyaa aad iyo aadna u dhiirigelinayaa in shirka Dhuusamareeb 3 uu dhaco. shirkaas haddii uu dhici waayo, nasiib daro, calool xumo iyo rajo xumo ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay ayay noqonaysaa. inay sheekada naga kala baahda ka dhalan doonto, inay talada tagto meel aanan filaynin ayaa ka dhalan doonta, in nala soo farageliyo ayaa ka dhalan karta, inaan u muuqana dad aanan taladooda ku filnayn in nalagu calaamadeeyo ayaa ka dhalan doonta, ayuu tibaaxay madaxweyne Waare.
hadalkan ayuu waara ka sheegay kulan uu magaalada muqdisho kula yeeshay xubnaha guddiga farsamada nooca doorasho soo aadan kaasoo ay ka maqan yihiin puntland iyo jubbaland. sida laga soo xigtay waara guusha shirka dhuusamareeb ayaa ku xiran qaabka uu u shaqeeyo guddiga farsamada oo dhiirinaya qodobada la isku haya ka hor inta aysan madaxda miiska isugu iman. villa soomaaliya ayaa weli ku dhegan doorasho qof iyo cod arrintaas oo muddo kororsi ku dedan tahay maadaama waqti badan uusan harin, halka maamulada kale oo diiday riyadaasi waxay ku baaqeen nooc lagu heshiiyey. dhinaca kalena beesha caalamka oo ka digtay baaqashada wejiga saddexaad ee wadahadalka dhuusamareeb ayaa hogaamiyaasha Soomaaliya u sheegtay in araggaasi uu baajinayo go'aan hal dhinac ahi. saaxiibada adduunka ee Soomaaliya oo bayaan wadajir ah soo saaray ayaa qiray in dib u dhaca kulanka uu xoojinayo kalsooni darada islamarkaana wiiqaya dadaalada isu soo dhawaanshaha iyo wadar ogolka. war-saxaafadeedkan oo nuqul ka mid ah soo gaaray shabakada wararka ayaa ciwaan looga dhigay saaxiibada beesha caalamka ugu baaqay madaxda Soomaalida inay qabtaan shirka muhiimka ah ee doorashooyinka qaranka. saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ee liiska hoos ku taxan waxay ku hanweyn yihiin shirka ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka dib isugu imaanayaan magaalada Dhuusamareeb 15 bishan Agoosto sida qorsheysan, iyadoo ay kasoo qaybgalayaan dhammaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. waxaana laga maarmaan ah in la dhowro kalsoonida dhawaan la abuuray ee madaxda ka dhaxaysa iyo in la sii wado geedi socodka isfaham dhisida ee dilaamay intii la joogay shirweynihii hore ee Dhuusamareeb si ay Soomaalida ugu sii socoto wada siyaasadeed oo xasiloon ayaa lagu yiri bayaanka. qoraalka ayaa la raaciyay haddii cid ka mid ah madaxda uu ka qaybgali waayo shirweynaha soo socda waxay baabi'in doontaa kalsoonida weli jilicsan, waxaana ay wiiqi doontaa geedi socodka isfaham dhisida, waxaanay hoos u dhigi doontaa inuu kulanka awood u yeesho in lagu gaaro go'aamo la hirgelin karo iyadoo 3 bilood kaliya ay ka hartay taariikhda bisha November ee la qorsheeyay inay dhacaan doorashooyinka federaalka ee sanadka 2020 iyadoo 4 bilood kaliya ay ka dhiman tahay inta uusan dhammaan xilli-xileedka baarlamaanka federaalka tobanaad. saamilayda Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin inay si degdeg ah uga heshiiyaan wixii la qaban lahaa si hore loogu sii socdo iyo gaar ahaan hanaanka doorashada oo dib u dhac dheeraad la'aan ahi ka jiraan. hawsha guddiga farsamada oo loo xilsaaray inuu kasoo baaraandego soona diyaariyo talooyinka hanaanka doorashada ee madaxda ay isla gorfeyn doonaan ayaa laga maarmaan u ah guusha shirweynaha la sugayo. waxaana ka walaacsannahay in qaar ka mid ah dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka aan weli guddiga usoo dirin wakiiladooda, waxaana ku boorinaynaa inay wakiiladooda u ogolaadaan inay ka qayb qaataan hawsha guddiga oo durbaba la bilaabay inta ay sii wadaan wadahadalada ay kula jiraan hogaanka dowladda federaalka si loo xaliyo arrimaha weli taagan ayay ku dareen. daneeyaasha ayaa tibaaxay waxaan xusuusanaa in muddadii laga jooga shirweynihii hore ay madaxda ku heshiiyeen in laga maarmaan ay tahay inay dalka ka dhacdo doorasho waqtigeeda ku dhacda oo dhammaan saamilayda qancisa lana hirgelin karo. sidaa daraadeed guddiga farsamada waa inuu diiradda saaro inuu dejiyo xulashooyin laga xulan karo si loogu heshiiyo qaab doorasho oo lagu gaaray isu tanaasul si loogu qanciyo dhammaan saamilayda. waxaan mar kale adkeynayaa sidaan horeyba ugu sheegnay baaqyadii hore iyo wadahadalada hadda noo socda ee aan la leenahay dhammaan saamilayda in qaab doorasho kasta uu si qasab ah ku mariyo mid kale oo ka mid ah saamilayda ama qaar yar oo ka mid ah saamilayda iyadoo ogolaansho laga helin dhammaan saamilayda oo uusan yeelan doonin sharciyad dalkana laga hirgelin karin. waxaana hadda adkeynaynaa maadaama uu nagu soo fool leeyahay dhammaadka xilli-xileedka baarlamaanka tobanaad in talada wixii la qaban lahaa si hore loogu socdo ay ku heshiiyaan dhammaan saamilayda oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, labada aqal ee baarlamaanka iyo xisbiyada siyaasadda. waa inuusan hal saamilay oo aqalka ee baarlamaanka iyo xisbiyada siyaasadda waa inuusan hal saamilay oo kaliya oo ku jira sharci dejiyaha laftiisa qaadanin go'aan keligiis ah oo uu ku kordhiyo xilli-xileedka baarlamaanka tobanaad ama laanta fulinta federaalka ay hoosta ka xariiqeen. deeq-bixiyaasha ayaa kusoo xiray waxaan diyaar u nahay inaan taageerada laga maarmaanka ahi siino qabashada shirweynaha Dhuusamareeb ee soo socda iyo hawsha dhabta ee guddiga farsamada. hadalka beesha caalamka ayaa ku soo aadaya xilli madaxweyne Farmaajo lagu wada in maanta uu la hadlo mudanayaasha aqalka hoose xilli uu qorshe u ahaa in maanta Dhuusamareeb uu si rasmi uga furmo shirka wada tashiyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka.
ugu dambeyntiina xog gaar ah oo aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu doonayo in xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo magacaabo siyaasi uu isaga watay isla markaana danihiisa gaarka uu ka leeyahay hay'adaha dowladda federaalka uu ku fushado. warar hoose oo aan helnay inkastoo aanan xaqiijin karin saxaanshooda ayaa waxa ay sheegayaan in Sheekh Shariif uu ogolaaday in waqti dheer ay ku darsato dowladda Farmaajo xilli arrintaas ay ahayd mid xasaasi ah oo xaalad cakiran dalka gelin karta. sidoo kale wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran oo galaangal xoogan ugu jira sidii uu xilkaasi ugu heli lahaa shaqsiga uu wato. waxaana wararka qaar oo aan helayna tilmaamayaan in Sheekh Shariif heshiis gaar ah oo arrintaasi ku aadan oo kula jira madaxtooyada Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa weli soo magacaabay ra'iisul wasaarihii bedeli lahaa Xasan Cali Khayre oo 25 bishii Julaay ee golaha shacabka ay codka kalsoonida kala laabteen iyagoo ku eedeynaya inuu ku fashilmay howlihii loo igmaday. siyaasiyiin badan oo qaarkood horey loo soo tijaabiyay ayaa u hanqaltaagaya helidda xilka ra'iisul wasaaraha, waxaana qaarkood wata madax maamul goboleed oo madaxweyne Farmaajo ka ballan qaaday. agaasimihii madaxtooyada Soomaaliya ayaa xilkaasi iska casilay iyadoo si dhab ah loo ogeyn sababtoo isku casilay, waxaana kaliya la ogaa inuu ka mid ahaa dadka sida weyn loogu saadaalinayay in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha.